السلام عليكم كولبا ألف باتا ABCD 1 2 3 وأنا وأفرتون ما نعصب أركت عصب كسر لو جنال كيجا هذا كيش فيديو كان لايك يتابو رأي هدارت نادي وتد كومنت كوك سوبر أركت سان عمل هدارت سبسكرايب كله كسي ما أنت فيديو يقول كوساب سيها confession حاول قف حقرنا يو وحاجو عن صدي in a video confession الصباح دي صاروا 10 in the morning أفر ساعة صباح نمرك كوت هاي هبينكي مركي هل ساعة هبين مكوت هاي نك أفريقيا دالما نيسو صار معناها هل مالين جوديدا أو حربا لو فيديو إن أصو صاروا اسكو حجي تضاو مالين وصاص challenge أنا جمال قرطواي ما دام يقصوا دعوتين آتر هذين فرتونا يوحاتر هذا يجفا وحنا نمسو سارتين وحربا إن أسكالك عيو مركا داوشو عن هنو بلاوتو قفكان كوبادو حييري صاحبة لا هاي وحيلا سعوتا ويل كاسو أيضا قعان وقاضو أباي مركستو إيقاقسو دعوتا وحي إماتا أيضو لحقتي أما أيضو معركتي ميل إيقردودن تهي مركان كودو حرير كان كسوبح وحي يقول ترادا جعل كي كواد واي إيما فضوضا إنا كسوبحو وان كودالي إنا صاحبتي وانيو because مركستو قعان وقاضو ونواتي كنقطا مرحتا وحا قارني in ay ehelkeeda maqlaan in uu wiilkan taabto markii aniga li weydiiyana ee ugu qasabtay in aan been u sheego dadkeedii been u sheegay xiriirkiina waa sii waday markasta waxaan ka walwalaa inaana arkin walaashayda oo aan arko maalin jirkeeda ayadoo meel lagu jarjaray waan ka baqaa ninkan sidoo u socdo waxaan u maleynayaa inuu nafta ka qaadi doono maalin maalmaha kamid ah aniga waxaan rabaa inaan qirto waxay tahay waxaan garab weydiistay gabar in adeera aan nahnay oo social media ku jirto waxaan ku dhahay abaaye saan baa jirto isaaciday gabadhan halka kaliya ay uga tagi karta ninkan waxa waaye in ay ogaato in uu gadaasheeda xumeynayo oo gabdho kale la sheekeysanayo walaasheedii aniga waxaan dabin ku sameynay in wiilkan ay ayada shukaansato kadib screenshot aan ka qaadno oo ayada aan u dirno sidaas baan sameynay mindhaa 2 isbuuc bay shukaansanaysa wiilka cadeemihiina waxay u dirtay saaxiibteeda daan saaxiibteeda ay soo wacdo dhayso dilistii wuxuu igu daray in uu igu jiid gareeyo maxaan sameeyaa anigana waxaan ku waaniyay xiriirka inay ka soo baxdo saas uu xiriirka ku dhamaaday waxaan rabaa inaan qirto inaan xiriirkeeda burburiyay walaalay gaclayso horta wax badan aan maqalnaa qof ahiblaaya halkaas lagu dilay gabar Soomaaliyeed nin saas ku sameeyay ama gabar oo dhan Soomaali kuma xirno soo waa ognahay dadka qaar in xiriirka ay ku jiraan oo u keeno naftooda inay ku waayaan soo tamii waxa sameeyay wax xun ma aha laakiin talada aan ku siinayo waxay tahay hadalka yuu soo dhaafin adiga gabadhaas because hadhooda saaxiibta hadee maqasho in aan adiga ka dambeeyso waxa laga yaabaa sida wanaaga inay u qaadanin ay u qaadato hey naagta ninkeyga rabtay jealous bay iga ahayd oo way iga masiirsaneen kila fulan cosmo ogaa kartid qofka walaalkaaga markii waxa ay dhacaan reaction-ka iyo sidoo noqon doono qof aad isku hubtid ma jirto soo waxa ilaa wanaaga adiga sameysay to me wax xun ma aha ba isku day adiga iyo walaashaada hadalkaas meeshaas inaad ku soo afjartaan oo weliga qof kale ta aad u sheegeen saa ku badbaadsato saaxiibtinimada gabadha la leedahay walaalayaal idinkiina comment ku soo qoro waxay sameysay manila saxsan tahay wixii waana aad bixin lahaydeen comment ku soo qora qofkan kale wuxuu yiri abaayo xaas baa leeyahay waxa isqabnaa muddo 2 sano ee waxa ku sii soconaa 3 sano ani waxa leeyahay jiro aan ogahay inaan u dhiman doono maan u sheegin marka ay shukaansaneenay haddana uma sheegin waa wax aan qarsado sababtoo ah ma rabo in ay ila dhaqanto in aan dhimanayo camal ama ragnimadeeda ay liidato abaayo tan waa waxaan qarsaday markii aniga aan appointment leeyahay aan rabo dhakhtarka inaan aado ayada waxaan ku dhahaa shaqada ku soo daahaya warqado guriga iguma soo dhacaan oo waxaan leeyahay safe address wiil walaalkeyga aan u dirsadaa oo meeshaas baa warqadaha caafimaadka igu soo dhacaan mana rabo xaaskeyga inaan weligeed u sheego because ma rabo sida ay la dhaqanto inay duunaato markasta waa la dhiman doonaa waxaan u dhiman doono laakiin ma rabo inaan hadda u sheego waxaan qaranayo waxay tahay jiradeeda aan ogahay inaan u dhiman doono inaan xaaskeyga u sheegin okay choice ada iskale qof ma dhihi karno maxaa saan u sameysay maxaa kan u yeeshay waxa dhib ah un ay talada imaanaysa markii cudurkaas yahay wax ayada saameyn karo macnaha hadii jiradan adiga kugu tahay oo ayada u gudbi karin then xaqa u leedahay inaad qofka u sheegin because hada isdheeysid
rabidiyaa yaraanayso ama isdhehaysid walwal badan oo qofkaaga ku abuuraa ama xiriirkiia isbedelaya dan xaqa u leedahay choiceka adaa iskale laakiin choiceka waxaada lahayn markii jiradaas ayada effect ee u keenayso micnaha tusaale camal cudur oo markaa xiriir wadaagtaan ayada heli karta camal qaladkugu waa inaad qarsato ama awlaadaada u gudbi karto ama ayada ay u gudbi karto so wax hadday yihiin aada gudbi karin then choiceka adaa iska laakiin markasta waxaa fiican intuu qofkaaga hadhowdi ku nixi lahaa maalintuu ku waayo oo la dhihi lahaa hebel intaasu sano waxaas qabay ee isdhihi lahayd muxuu ani ii aamini waayey muxuu aniga maaragtay ii qariyey iyo walwalkaas iyo isdhihi lahayd kalsooni ma igu haysanin si waxaa fiican adigana dib inaad iskugu noqoto oo fiiriso isbarbar dhigto haddaa u sheegtid see noqon doontaa haddaa u sheegin hadda saa ku jirtidna keliyaa ku tahay oo maantay haddii wax jiro ama xanuun ku qabtaan qofkaagi aan la wadaagi karin cille ila tahay guurkaas dhan aad ku jirtid cille inaad dareemaysiday ila tahay cause guurka lagu sheegaya is not just in awlaad la dhalo iska noolaado waa wehel iyo lamaane iyo qof dhibkaaga iyo dheeftaada la wadaagi kartid inaad haysato so me personally meel fadhiisaa ku dhihi lahaa isla barbardhig haddaa qarsato faa'iidada maxay tahay haddaa sheegtana faa'iidada maxay tahay marka isla barbardhigto go-aanka gaar qofka kale qofkan waxay tiri aniga abaay saaxiibaan leeyahay waxaan jeclahay saaxiibahayga in ay ii qashuucaan ee saad ii dareemaan ee i ogolaadaan markasta waxaan sameeyaa familkeyga been ka sheegaa familkeyga wax ii dhibanaa markasta waxaa ku dhahaa saanaa la ii galay say ii soo dhaweeyaan oo naxariis iyo ogolaasho oga helo dhibkeyga waxaa waaye been baa familkeyga ka sheegaa taasaa rabaa in aad qorto waxbaa jiraa jirto trauma jirto waxaa jirto wax kugu dhacay oo kaa keenaya in aad validation raadisid validation Soomaaliga waxaa u dhaafartuunay ogolaasho in lagu ogolaado in lagu raboodo in lagu soo dhaweeyo baahiya oo qabtaan maybe yaraantaadiya lagu tusin kalgaceel iyo ogolaasho badan so ilama haboono inaad saas ku raadisid waxaa fiican intii waxa kugu sii weynaan lahaayeen oo hadhowda ama noloshaada halis u gelin lahayd ama qof kuu qalmin intaad sheeko u sheegto isku liidi lahayd just kalgaceel inaad ka hesho inaad aragto bal meesha waxay ka imaanaya traumada meeshay ka imaatay bal soo raadi because wax fiican ku way doontaa because dadkan hadda qashuucan iyo saanimadan aala sheergareynaysid oo ku dhahayaan ha ku fin ha jabin noloshaada weligaa ma kusii jiri doonaan soo markasta maxaa ku jiray marka inaad qof u calaacashid sidii lagu rabo kalgaceel lagu tuso haddana dadka way wada hadlaan imagine dadka saadka iyo beenta u sheegaysid haddii ehelkoodii waalidkooda intay u tagaan ay dhahaan heblaayo dadkeeda saanay kula dhaqmaan kan oo been ay hadhowdii waalidkaaga hadalkii ku noqdo saas ku weysaba kalgaceelkii awal ka haysatay waalidkaaga iyo xushmadii soo ilama haboono waxbaa jiro waxbaa kugu dhacay qof kasta siduu u dhaqmo markuu yaraa wax ka imaaday inay yihiin aaminsanaa micnaha haddii aad raadinaysid in lagu aqbalo oo team lagugu soo biiriyo oo lagu yiraahdo fartuun tusaale ahaan waxaa laga yaabaa gurigaaga markaa yareed caruurta walaalahaagii adiga in aad helin fartuun shaqsinimadaada la accept garaynin marka taas dib usii raac qofka kale tana kusoo gabagabeynaa confessionkan gabadhan waxay tiri abaayo ninkeyga gurigeena wuu ka tagay 3 bilood uu ka maqan yahay markuu ogaaday in aan uur u leeyahay oo uurkaasna uu yahay gabar telefoonkana igama qabto markaa qoraal u qorana wuxuu leeyahay waa imaan doonaa waa soo socdaa mana imaado waxaan sameeyay ma aqaano nolosha way fiicneed ilaa maalintii aan u sheegay inaan gabar wado ee waxa isbedeleen waxaan karanoyaa ninkeyga inuu igu nicooyo in aan gabar u wado nihi badbadkaa heemaa wadnaa is 2023 maantii haddii si loo fiiriyo heer waxa gaaray waa dumar waxa dunidan jiidaya dhan waa dumar jaamacad hadaa tagtid marka ani graduate gareynaayay literally 80% galaaskeyga was dumar hal iyo dhif iyo qaliil oo raga ku jiray maku dhahoyo waxbarashada qof wax ku noqdaa ba dadaalkay ku tusaysa gabar waa tii gurigana howsheedii wado banaankiina hadda wax ka qabsanayso naxariis waalidnimo haddii la dhahona badanaa gabar ay ku badan tahay saanii sheegay ma jimcinooyo wiilal fiican way jiraanba waa laga soo tegay waagihii laisdhihi jiray gabar waxaa waaye culeys gabar waxaa waaye responsibility maanta wiilashiyaaba loo boqooyaaba waxaa laga yaabaa anaha dooyada inay fasaxdo oo banaanka wax ka doonan karo oo wiil leh loo boqooyo ma fahamtay soo dunidu way isbedeshay soo hadduu ninkaaga aaminsan yahay in gabar ay liidato
hortiisa wax ka arkaya because maanta saan ii sheegay gabar aa wax qabsato gabar aa loo baahan yahay hiil iyo hoona gabar level gashaba hadda so asay dhibaysaa dhexda xiro I don't think in aa dhibaato badan arki doontid because haddaa family haysatid waa lakula garab istaagi doonaa noloshaan aa ujeedidna qof la isku huba mala so hadduu hadda saas kugu noqdaba alxamdulilah adoona 5 wiil intaa u dhashay hal gabar maalintaa keentay ilbaabka kaaga bixinba hadda just one child talada waa dhankiina intaa kusoo gabagabeynaya waxaa jeceshiin please emailkayga intuu ku yaalaa intaa kusoo qori doonaa isoo dira confessional dilemma isku daya please magacihiina iyo da'diina iyo maalmaha inaad qarisaan cause ayaantaan caadi usoo wada qortaan anina way ugu adkaanay inaa so magacihiina qarsada da'diina iyo maalmaha iyo waxa kala badbedela come on waa lagu raadkaaga waa lasoo heli karaa infact si kastoo magaca u bedelo marka please minimize waxaa soo qoraysaan sheekada soo gaabiya walaalayaal haddaa ka heshaan please like comment and subscribe aan isku dayno inaan 400,000 aan gaarno because YouTube waa ku raagay I love you guys take care. Mwah.